boob xoog leh loo geystay dukaamadii ay ganacsatada Soomaaliyeed lahayd ayaa waxaa haatan dib u bilowday in goobahooda ganacsiga dhistaan. Dhisida goobahooda ganacsiga ayaa waxaa ka haysta cabsi, taas oo ah in mar kale ay boob kala kulmaan burcadda Koonfur Afrikaanka ku nool dalkani. qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in sababta keentay inay dib u dhisaan goobahooda ganacsiga ay tahay kadib culays weyn oo soo wajahay noloshooda, maadaama xarumahaas ganacsiga ay ku maareyn jireen noloshooda. magaalooyinka haatan dib u dhiska ku bilowday dukaamada ayaa waxaa ka mid ah Cape Town, Johannesburg, Pretoria, Lebombo iyo magaalooyinka kale ee ku yaal dalka Koonfur Afrika. bishan gudahooda ayaa boob xoog loo geystay dukaamada ay Soomaalida ku lahayd iyo sidoo kale kuwa ajaanibta dalka Koonfur Afrika. Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa wajahaya culays badan oo kaga imaanaya kooxaha burcadda Koonfur Afrikaanka. dhibaatooyinka xilligan haysta Soomaalida ayaa waxaa ka mid ah boob, hanjabaad iyo dil loo geysto.